السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل كسو اوغاتي oo ay soo xaqiijisay goobta ay yaalaan toddobadii mayd ee ka maqnayd Israa'iil oo ay sheegtay in iyaga dartood dagaalka Gaza ay dib u bilaabayso macluumaad arinta ku saabsan ayaan idiin haynayo guud ahaan xaaladda Gaza qodobada sidoo kale caawa barnaamijkan idinku heynayna waxa kamid ah dalka Suudaan ayaa gubanaya qax iyo qalalaas u daran ayaa ka socda waqooyiga dalkaasi waxa ay kooxaha jabhadaha mucaaradka gacanta ku dhigeen deegaano muhiim ah waxaynu isdul istaagi doonaa xaaladda Suudaan sida hadda ay tahay dhibaatada halka ka taagan qodobada sidoo kale aanu barnaamijka idinku heynayna waxa kamid ah caasimada dalka Sacuudiga Riyaad waxa ka dhacay shir muhiim ah oo ay dawladda Sacuudiga qaban qaabisay loogana hadlayo mustaqbalka dadka reer Falastiin Sacuudiga waxa ay diyaarinaysaa wax loogu yeeray dawladda rasmiga ee reer Falastiin caasimadeedana ay ahaanayso Qudus macluumaad arinta ku saabsan ayaan idin diyaarinay oo aanu dul istaagi doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa kamid ah dalka Mareykanka waxa ka furantay dood yaab leh taas oo ku saabsan in madaxweynaha hadda xilka haya Mareykanka Donald Trump uu mar kale isu soo sharxi doono isagoo madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka sanadka 2028 sharciga Mareykankana ma ogolo qofka hadii laba jeer uu madaxweyne noqdo mar saddexaad ama mar kale noloshiisa isma soo sharxi karo siday wax u jiraan waan isla eegi doonaa ay ku doonaysay inay mar kale dagaalka Gaza dib ugu noqoto Israa'iil ayaa u qabatay kooxaha iska caabinta muddo 5 cisho gudahooda in ay soo dhiibto tirada meydkii Israa'iil ka maqnayd oo kamid ahayd dadkii laga qabsaday 7 Oktoobar 9 meyd ay ugu dambeyn Israa'iil sheegtay inay wali ka maqan tahay oo ay ku jirto kooxaha iska caabinta ay marinka Gaza Hamas waxa ay markii hore isbuucan sheegtay inaysan milay hadda meel ku ogeyn meydadka harsan ee ka maqnaa Israa'iil Mareykanka Donald Trump wuxuu u qabtay Hamas 48 saacadood 48 hours gudahooda inay ku soo dhiibaan ama ay warcad ku keenaan meydadka ka maqan Israa'iil hadii kale waxa uu yiri waxay la kulmayaan cawaaqib aad u foolxun hadalladan ayaa waxa uu walaac geliyay dadka reer Gaza ugu dambeyn caawa waxa uu soo yeeray dadka reer Gaza war aad iyo aad u farxad badan kaasoo ah in haddana ay meeshii ay ku marmarsiyoonaysay Hamas ee Israa'iil ee ahayd inaan la haynin 9 meyd meelna lagu sheegi karin aysan yeelaynin oo ay ka rabto kooxaha iska caabinta arintu markaa meesha marayso oo dawladihii damaanad qaaday heshiiska Sharm el-Sheikh ee dalka Masar 19 bisha hadda dhamaanaysa Oktoobar ee dhacay waxa su'aalo la iska weydiiyay sidee arinta loo qaabilayaa Israa'iil may dartiis ay dad nool u dilaysaa dhinaca kale xasuusnow Falastiiniyiinta waxa ilaa hadda loo keenayaa meydad waxa cajiiba waxa gudaha Gaza laga qodayaa iyo dhulka reer Falastiin xawaalo wadareedyo oo ah meydad ayaa hal mar la wada aasaya waxaase waliba cajiiba dadka la aasaya Falastiiniyiinta Israa'iil dhankeeda laga keenayo ma ahan dad la garanayo qofka ay yihiin meydadkiini waa la leeyahay dadkan way aasanayaan dhanka Israa'iil meydkii loo gudbiyo waa inay xaqiijiyaan magaciisa qofku uu yahay kadibna qoyskiisa loo geynayaa meydkii sidaas ay meydadku ku aasanayaan laakiin dhanka Falastiiniyiinta sida arinta ma ahan waxay aasanayaan boqolaal qof maanta u dambeysay dad aad u far badan oo reer Falastiina oo Israa'iil dadkii ay soo gudbisay kamida ayaa la aasay laakiin dadkan waxa la aasay iyagoo la aqoonin qofka magaciisa qoyskiisa waa la iska aasay waayo Israa'iil way soo gudbisay dhamaantaasi waxay ku tusaysaa xaaladda dadka reer Falastiin ay wajahayaan iyo culayska dhanka Israa'iil uga imanaya waxaase cajiib caawa waxa la soo afjaray in meydadkii goobaha ay yaalaan ay Hamas ogtahay waxa ay xiraysaa albaab Israa'iil ay dagaalka Gaza ugu noqon lahayd waxa la leeyahay waa nafis iyo fursad kale oo ay dadka reer Falastiin helayaan oo dagaalka ku daalay caruur agooma gabdho ragoodii la baabiyay dad meel ay u qaxaan aqoonin dad hooyay seexdaan garanaynin ayaa loogu hanjabayaa dagaal kale caawa maxay leedahay marka Hamas waxay leeyihiin waxaynu ogaanay
goobaha ay kala yaalaan meydadka ilaan meydadka midba meelaa la dhigay hal meel lama dhigin ilaan dadkan fridge ama qaboojiye meydka lagu hayo ma haystaan meelay ku aaseen marka meelihii way calaamadeysteen hadda waxay leeyihiin meelihii ayaanu dib u helnay mana sheegin xilliga ay wada dhiibayaan sida Jerusalem Post iyo warbaahinta Arab News iyo kuwa kale dhammaan ay qorayaan xilliga in hal mar wada dhiibayaan meydadka inay qayb u kala dhiibayaan iyo siday u soo kala helayaan u soo kala aruurinayaan ma sheegin laakiin waxa war wanaagsan ayaa la leeyahay intani mar kale ay joojinayso colaadii Israa'iil iyo militariga Netanyahu ay ku hanjabayeen waayahay saaxiibada qiimiga lahow aynu toos ugu gudubno dalka Suudaan oo sanadii hore kamid ahaa dalalka ugu xasiloon Afrika maanta waxa uu marayaa iyo maalmahanba waqti aad mugdu ah dawladda dalka Suudaan waxa laga qabsaday deegaano iyo goobo muhiim ah taas oo sababtay in ciidanka Suudaan jabkii ugu weynaa bilahan uu soo gaaro ciidamada militariga Suudaan ayaa burbur kala kulmaya waqooyiga gobolka Darfur iyadoo 48 saac ee u dambeeyay kooxda RSF saddex deegaan oo muhiim oo istiraatiiji ah ay ka qabsadeen Darfur gaar ahaan deegaan muhiim oo la yiraahdo El Fasher oo ay shalay ka baxeen militariga Suudaan iyadoo gacanta hadda ay ku dhigeen RSF intaasoo kaliya maahan waxa la arkay muuqaalo yaab leh oo ka imanaya dagaalada ka socda waqooyiga dalka Darfur ee dalka Suudaan waxa ay dhaliyeen weer duqeymadaas iyo weerarada militariga halkaas ay ka wadaan iyo kooxaha RSF oo soo galay deegaanadaas dadweynaha aad u fara badan oo qaxaya waxay dawladda dalka Suudaan ku eedeysay jabhadda RSF ee gacan saarka la leh Imaaraadka Carabta in ay wadaan dhibaatayn aad u badan iyagoo dadka ugaarsanaya gaar ahaan u beegsanaya qabaa'ilo waxa Suudaan hadda ka socda dhaqan yaab leh beelo dhan oo reer Suudaan ah gaar ahaan deegaanada waqooyiga Darfur iyo nawaaxigeeda dadkii deganaa waa la beegsanaya oo waa la dilaya iyagoo qofka xitaa shacab uu yahay caruurta xitaa in la dilaya ay militariga dalka Suudaan ay sheegeen taas oo ay ku eedeeyeen jabhadu inay ku xadgudbeen sharcigii dagaalka waxa sidoo kale maanta la xaqiijiyay afayeenkii ciidanka isku dhafka ah ee militariga Suudaan la dilay kaas oo la yiraahdo magaciisa waxa lagu diray gobolka Darfur magaciisu waa Ahmed Hussein Mustafa waxa lagu dilay El Fasher waqooyiga Darfur halkaas oo ay la wareegeen ciidanka kooxda RSF ee gacan saarka la leh Imaaraadka Carabta sida ay Al Jazeera xaqiijisay haddaba dhammaan wararka ka imanaya Suudaan waa warar aan lahayn dhiilo wanaagsan militariga Suudaan ayaa duqeymo diyaaradeed ka bilaabay deegaanka ay la wareegeen ciidanka RSF ee ka tirsan waqooyiga Kordofan halka oo dagaalo culus ay ka dhacayaan magaalooyinka Umurrawaba iyo sidoo kale Raxaad Abu Dagna oo laga adkaaday militariga sida kaliya militariga dalka Suudaan hadda ay u muuqdaan inay ku dagaalami karaan ayaa marka laga hadlayo waqooyiga dalka Suudaan diyaaradaha droneska inay isticmaalaan muuqaalo argagax leh ay baahiyeen RSF jabhadda gacan saarka la leh Imaaraadka Carabta dhinaca kale dawladda dalka Suudaan hogaamiyaha militariga Suudaan Abdel Fattah al-Burhan ayaa qaabilay safiirka dalka Turkiga u fadhiya Suudaan Fatih Yildirimid oo madaxa xiriirka militariga safaaradda Turkiga xilli militariga Suudaan lagu jabiyay dagaalada ka socda waqooyiga gobolka Darfur ee Kordofan oo ay ku jirto magaalada istiraatiijiga ee El Fasher oo ay la wareegtay jabhadda RSF Turkiga wuxuu militariga Suudaan siyaa taageero military taa oo ka dhigayso kulankan mid muhiim u leh militariga dalka Suudaan lama garanayo xaaladda dalka Suudaan sida ay ku dambeyn doonto waxay soo muuqataa hadda dalka Suudaan in ay dagaal aad u foolxun faraha la gashay dawladda shisheeyana ay ku dhex dagaalamayaan dadka reer Suudaan waxay wajahayaan xaalad bini'aadanimo iyo khatar aad u daran oo halisa u dalkooda wajahaya waayahay saaxiibada qiimiga lahow Suudaan dhibka ay ku sugantahay waxa dareemi karo dal sida Soomaaliya oo kala ah
oo intay dadku qaxeen qabaa'ilo isku dagaalay isburburiyay dowlado shisheeye faragishteen la kala geeyay qabaa'ilo loo kala geeyay hogaami kooxeedyo ay ka soo baxeen shirar loo qabtay dib u heshiisyo loo sameeyay gobol loo kala jarjaray dadku muddo badan ay dhibtoodeen dowladnimadii ay adkaatay inay soo noqoto xanuunkaas waxaa dareemi kara dal sida Soomaaliya oo kala ah waxa ay noo soo socdo qodobka ay qodobada kale markaynu meesha uga gudubno sheekada Trump iyo ololaha doorashada 2028 Mareykanka hadalkaas ayaa waxa uu noqday kan ugu hadalhaynta badan Sacuudiga shirka uu qabanaya ee muhiim ku ah reer Falastiin isla akhbaar ayaa idinkaga haya marka Mareykanka Donald Trump sheekadiisa ayaa hadda waxa ay tahay mid aad u xiiso badan gudaha Mareykanka aadna loo hadalhayo madaxweyne Donald Trump ayaa dhowr jeer hore waxa wax laga weydiiyay inay suurtagal tahay in dastuurka Mareykanka wax laga bedelo si uu dib iskugu soo sharxo doorashada soo socoto 2028 laakiin Trump dhowr jeer waxa uu sheegay in dadku taageerayaashiisu aad ay u rabaan laakiin arrintaasi aysan ahayn mid uu hadda go'aansaday hadalka uu ku celcelin jiray ee ahaa inay taageerayaashiisu aad u jecel yihiin inuu soo sharxo iyo qaar ka mid ah xisbiga Republicanka oo sheegay inay diyaarinayaan mooshin iyo qorshe la doonayo in sharciga da'da xilliga madaxweynaha iyo sidoo kale soo noqnoqoshada termka inta jeer qofka madaxweyne ka noqon kara Mareykanka wax laga bedelayo taas oo gudaha Mareykanka cabsi ku noqotay in sharci burin weyn ay ka soo socoto iyo Trump uu dhaqmay sida kaligii taliyo oo kale dhinaca kale Trump ayaa la sheegay inuu aad u jecel yahay madaxda caalamka reer galbeedka ee Mareykan oo dhan ay ku tilmaami jireen inay yihiin kuwa kaligii taliyaal oo ay ka mid tahay waqooyiga Kuuriya ragga haysto iyo kuwa kale xitaa Erdogan oo ay aaminsan yihiin dalalka reer galbeedku inuu yahay nin muddo dheer joogay ayuu Trump yahay dadka aadka u xusaayay inuu la sheekaysto lana kulmo oo u yaqaan inay yihiin hogaamiyaal adag oo geesiyaal ayuu u yaqaanaa sidoo kale wuxuu aad u qadariyaa boqortooyada Carabta gaar ahaan Khaliijka si gaar ah amiirka dalka Qatar wuxuu ku tilmaamay inuu yahay boqorka ugu wanaagsan intaas oo dhan waxa gudaha Mareykanka looga fasirtay Trump inuu u muuqdo nin isku diyaarinayo habdhaqankiisa madaxda iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda uu la dhaqmayo marka la eego nin doonaya inuu muddo dheer sii jooga xilka inta uga harsan noloshiisa laakiin su'aasha aad ku soo noqnoqotay isbuucan waxa ahayd in Trump uu ciyaari doono game kale ama farsamo kale taas oo mar kale u suuragelin karayso inuu mar kale dib ugu soo noqdo aqalka cad marka uu dhamaado xilligiisa doorashada 2028 waxa soo baxay warar sheegayay in Donald Trump ay suurtagal tahay inuu u tartamo madaxweyne ku xigeen halka saaxiibkii JD Vance ninka hadda madaxweyne ku xigeenka ahna oo markaa madaxweyne u tartamayo isagana uu noqonayo madaxweyne ku xigeenkiisa sida Ruushka oo marna Putin u noqon jiray ra'iisul wasaare marna wada madaxweyne sida Erdogan mararka qaar uu noqon jiray ra'iisul wasaare mararka qaarna madaxweyne haddii marka sharciga Mareykanka uu ogolaanayo inuu madaxweyne ku xigeen noqdo inuu sidaa u tartamo si uu wali siyaasadda Mareykanka aqalka cad uu si dhex taagnaado maanta waxa uu sheegay in uu arrintaasi diyaar u ahayn hadda uusan go'aansanin laakiin mar kale waxa cajiiba Trump wuxuu ku celiyay taageerayaasheeda waxay ugu dhiirigelinayaan inaan mar kale isu soo sharxo oo aan joogo waan samayn karaa buu yiri hadalkaas siyaasiyiin badan ayaa ka muujiyay inay tahay kelmad khatar ah wax sharciga Mareykanka sida iyaga qorteen diidaya inuu isaga yiraahdo mar kale waan samayn karayaa shaki badan ayay gelisay laakiin wuxuu sheegay inuusan hadda diyaar u ahayn 2028 inuu isku soo sharxo madaxweyne ku xigeen ugu dambeyn Sacuudiga waxa ka socota sheeko xiisa badan oo dhanka Israa'iil aad looga indhaha loo taagayo oo Israa'iil ay aad uga walwalsan tahay cabsi badan la gelinayso mana ahan waxa Israa'iil jeceshahay Sacuudiga wuxuu u muuqdaa inuu ka jawaabayo diblomaasiyad iyo aflagaada hore uga timid wasiirka xagjirka ee maaliyadda Israa'iil Bezalel Smotrich oo sheegay isbuucii hore in Sacuudigu ay geelooda iska dhaqdaan haddii ay rabaan inay ku qasbaan in dawlad Falastiin la dhiso Sacuudigana oo hormuud u noqdo Israa'iilna ay ogolaato ugu dambeyn maanta magaalada Riyadh caasimadda dalka Sacuudiga waxa lagu qabtay shir la sheegay inuu muhiim weyn u ahaa dadka reer Falastiin loogana hadlayay aayaha dadweynaha reer Falastiin iyo dawlad ay yeelanayso Falastiin
sacuudiga ayaa martigeliyay dowlado kala duwan oo ka socday caalamka wasaaradda arrimaha dibadda dalka sacuudiga ayaa shirkaasi qabanqaabisay wuxuuna ka dhacay Riyaad sacuudiga waxa ay ku soo bandhigeen dowlad Falastiin qaabkii loo dhisi lahaa dowladahana ugu baaqay inay ka qayb qaataan waxa uu shirkani ku soo aaday xilli magaalada Qaahira dalka Masar qaybaha kala duwan ee Falastiiniyiintu ay ku kulmeen sida aynu ku sheegnay barnaamijkeennii aroornimo saakay haddaadan daawan fadlan dib u soo daawo wuxuu shirkaas ku saabsanaa iyo qodobada iyo muhiimadda shirkaas u reer Falastiin u lahaa shirka Riyaad waxa la sheegay inuu yahay shirkii ugu muhiimsanaa dhawaanahan looga hadlayo mustaqbalka reer Falastiin waxay Sacuudiga soo jeediyeen sida uu maartay heshiiskii ahaa ama ay tahayba in la yeelo xalka labada dowladood in uu yahay sida kaliya lagu kala badbaadi karo Falastiin iyo Israa'iil waxay soo jeedeen caasimadda Falastiiniyiintu inay noqoto bariga Qudus halkaas oo reer Falastiin u noqon doonto caasimadda rasmiga ah dowladda Falastiin ay ku shaqeeyaan waxay khubaradu leeyihiin haddii ay Sacuudiga arrintaasi ka dhabayso oo hormuudkii talaabada maanta ay qaado Maxamed bin Salmaan nidaamkiisii boqortooyadiisu ay ka dhabeeyaan waxay u noqonaysaa taariikh iyo guul weyn oo reer Falastiin u soo hoyatay Sacuudiga waxay haysaa laba ay Falastiiniintu aad ugu baahan yihiin koow waa dhaqaalo laba waa saameyn siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed oo intaba Sacuudigu ay ku garab istaagi karto waxay u arkaan khubarada arrimahan aadka uga faallooday inay tahay xilli ugu habboonayd ee boqortooyada Sacuudiga talaabada ay maanta qaadi lahayd waxa lagu sababeeyay in shirkii qaramada midoobay bishii 9aad dhacay dowlado badan ay sheegeen inay aqoonsadeen dowladnimada reer Falastiin tani waa fursad Falastiin ay dowlad